أنت مغليس يا أنت يا أركي سبا حنكو سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درجة دوحة ويوضياش نمضون هذا خير للكسية أما تنادان كمية هاي بشير عرب اللي يرادا ذاتك إن بدن ما يقرنايسه وعنو شيءنا دجال كدعيبة الصومالية أم عالم كنا كور رمينا دجال كحالة قصور كدعي وهنتدي يعرورتي يبعتدي الجول لاي دجال كاسوح الضبط الصعداء لابد يكون يكوبي طبعا كدجال كها نلقوه يرري على الشباب ما أنت الدولة دوحة وما قاعد بحيصي عبتي هي ذاتك قبل ياشا waxaad moodaa labada hadal inay istabaaqayaan waxaanu badda u sheegaynaa caalamka oo dhan uga warramaynaa arintaasi khaladaha loo wajahay mana aha sida loo dhigay ummad dhan oo la xasuuqay oo lagu laayay oo dawladdii magaca ay la lahaayeen ay ku lagu laayay weeye magaca dawladda lagu laayay waxaan ka rabnaa arintaas waxaanayna dhalinyaradii iyo dagaalka dadkii gali jiray baan gacanta ku haynaa ma rabno in dhiig kale ku daato waxaad hadda sidaad ogtihiin 2 bilood baan waxaanu hawlgal ugu jirnay nabadajin magaalada Galdob iyo Bandiiraley inta ka dhaxleh ma rabno inaan marka dadkii ku colaadii shalay anagu aan ka toobad keenay Soomaaliya oo uga digayna inaan ku celinno ma rabno waxaan dawladda Puntland uga digaynaa arintaas inay ka qoomamayso u sheegto dadkii wax gaareen biletoos ka bixiso aad iyo aad baan arintaas uga warramaynaa sida loo turjumayna ma aha sida anigu aan u dhigay oo runtii oo ilaah ka warqaba weeye dadka hadda ku dhintay dadkii culimada ahaa oo aad loogu hanweynaa weeye ama ganacsatadii ama odayaashii dadkaas weeye dadka ku leeday arintaas aasaan u sheegaynaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun marka hore waxaan ka tacsiyeynayaa dadkii shuhaadada ahaa oo ku dhintay weerarkii xalay iyo saakay ay ku soo qaadeen ciidamada Puntland waxaan adduunka u sheegaynaa intana maqlaysa iyo intana la joogtaba weerarkaas inuu ahaa weerar xaq darro oo khalad ah weerar si qaawan loogu soo qaaday beel weerar lagu burburiyay dhaqaalihii iyo guryihii iyo dadku wuxuu lahaa hanti weerar lagu laayay maatadii iyo caruurtii weerar aan waxba loo reeban hubka noocyadiisa kala gedisan loo isticmaalay annagu waa isxakamaynay haddaan nahay beesha leelkase waxaan hortaaganahay ciidankayagii waxaan hortaaganahay dadkayagii waxaan hortaaganahay dadkii dhibaatadu gaartay oo la xasuuqay oo la baabi'iyay haddaan odayaalnahay waxaan rabnaa dhibaato dambe inaysan dhicin waxaan doonaynaa nabadda sidii aan u raadinaynay inaan u raadino waxaan ka fakaraynaa mustaqbalka iyo danta Soomaaliyeed waxaan ka fakaraynaa danta reer Mudug nimankaas soo duulay oo garoowa ka yimid waxaan rabnaa dawladda Puntland ayada ujeedada ay ka lahayd ayada taqaanee inay si cad wax uga qabato isla markaana sharciga soo horkeento dadkii falka ka dambeeyay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga magacayga maxamed guuleed muuse la yiraahdo dhaqanka beelaha Soomaaliyeed ahna beelaha leelkase dhaqankoodan kamid ah dadkana garanaya waa og yahay inaanu fidna ka talino inaanu nabad ka talino waana garanaya ma badan oo na garanaysaa na maqlaysa odayaasha naga horeeyay oo codkan nooga horeeyay waxay ku hadleen baanu adkaynaynaa inay jiraan waxaanu u sheegaynaa beesha caalamka waxaanu u sheegaynaa Soomaaliya waxaanu u sheegaynaa Puntland maamulka Puntland waxaan u sheegaynaa intii nabadda danaynaysa falka xalaq ka dhacay gaalkaayo sida loo wajaho loo sheegay inuu sanahay ee uu yahay sidaanu sheegayno halka waa lagu soo duulay garsoorta koonfuraa la yiraahdaa waa lagu soo duulay hubkii dawladda lagu soo duulay teknikii dawladda lagu soo duulay diraaskii dawladda loo soo qaatay
annagu Puntland annagaa ka tirsan oo Puntland baa saa yeeshay malihiina waxaan leenahay Puntland ciidan ka yimid baa saa yeelay ciidamo Puntland ka yimid baa saa yeelay waxaa loo adeegsaday waxaan aqliga geli karin makhluuq tiro badan oo nus milyuun gaarahaya baa waxaa lagu magacaabay maandooriye lagu magacaabay maandooriyuhu qofkii lagu arko ama meeshii lagu arko ama meeshuu joogo ma lagu qabto waxa lagu burburiyay mawlacyadii diinta waxa lagu burburiyay masaajidadii waxa lagu burburiyay sagiirkii waxa lagu laayay caruurihii waxa lagu laayay aqoon-yahankii waxa lagu laayay culumaa diinkii baa lagu laayay markaas waxa la leeyahay waxa laga hortagay cabto iyo waxa laga hortagay maandooriye waxaanu leenahay oo u sheegaynaa intaas aanu u sheegaynaa intana maqlaysa iyo intana danaynaysa iyo inta nabadda danaynaysa iyo inta Puntland sharafkeeda danaynaysa iyo inta Soomaaliya danaynaysa arrinta in wax laga qabto oo sida loo dhigay ayaan ahayn sidaan u sheegaynaa ay tahay inay waxay ku wajahantahay hadda markaan waxay ku wajahantahay codkayagu wuxuu ku wajahanyaa intaanu sheegnay oo Puntland ugu soo horeysay ku wajahaya arrintaas baanu ka digaynaa arrintaasaan falxumadeed sheegaynaa arrintaasaan sida loo dhigay inay ahayn sheegaynaa arrintaasaan mudaharaad ka qabnaa sidii odayaashii hore sheegeenna annagu nabadaan ka shaqaynaynaa meel kasta nabadaan xadadaynaa meel aanu joogno dhaqdhaqaaqaanu diidanahay Soomaaliya dhibaatadeedaanu diidanahay Puntland dhibaatadeedaanu diidanahay ehelka dhibaatadiisaanu diidanahay waxaanu raadinaynaa waa nabadda in la arko oo runta laga sheego oo arrintaas noocaasa dadkii caawa falkiyay wuxuu yahay lagu cadeeyo oo dawladda Puntland ay waxay ka qaban lahayd ka qabato adduunka roogaysiiso sidaa weeye waxaanu ka hadlaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.